عليكم ورحمة الله وبركاته. وشمارك محمد علي مدح برنامج كهون كابيتال نتورك. اللهم صل على سيدنا محمد. أصحابته حويا أناليسيس بين سوينا todobaadka suuqa waa kii baryaha kanba boodaaleysanay marka ugu horeyn ilaahay afooyinka inaga hayo waxa weeyaan fariimaha bahda caafimaadka fariimooda hal la qaato fiidhowrka lagu dadaalo wixii muhiim ah laga maarmi waayo mooyaane inta badanna gooni shaqa baryahan guryaha lagama baxay qof walba qadartu waa meesheeda laakiin intaas baaban karto isbarbanaani اللهم صل على محمد. waxa weeyaan muuqaalka marka daawato hadii aad u bogto fadlan just like iyo subscribe wixii fariimaha comment iyo su'aalaha ra'yigaaga xagga hoose ku soo qori kartaa sidoo kale dadku cusub tahayna waxa weeyaan ku xidhnow YouTube channelka on capital network beelka yarna haylaw saad ula socoto markaa oo muuqaalada xiga ee aan halkan suuqa ay ku la fogaan doono insha Allah. waxa weeyaan xagga hoose ee muuqaalkan waxa yaala link brokerka marka aad doonaysaa in account rasmi ah furato halka hoose ee linkkaas taabanaysaa in email bay soo diraysaa marka account furato waxay wada heli doonaan dhammaan signalska live-ka aan galo sidoo kale link waxa yaala iyana group telegram ah oo Sharmaarke la shaqeysa aan ugu magac daray iyana halka si free ah ay kala aan ka wada socon karo اللهم صل على محمد. waxa weeyaan dii aynu yaraagno suuqa baryahan boo iska wala bishii dhaweydo dhan oo marba uu baxadigay kor buu gooyay hoos buu socday kor hoos waxa weeyaan wax kale ma aha waxa weeyaan baryaha kanba coronavirus-ku wuxuu saameyn ku yeeshay habdhaqankii iyo macaamilkii aadamaha suuqa waxa Forex-ka waxa weeyaan network ka dhaxeeya transactions ama dhaqdhaqaaqyo maaliyadeed oo lixaad leh oo ay bangiyadu isweydaarsanayaan marka ay dunidu wax kala iibsato haddii ay meesha ka baxaan waasantii dabcan ganacsiga iyo dhaqaalihi uu saameynta ku yeeshay Forex-kuna kama duwana taa markay kuwaas meesha ka baxaan waxa imanaysa in sicirku aanu fadhiisan dadna wax isku haraya qoladii just mala awaaleysay suuqa si hilaadinaysay go'aamadooda ku saleynayay hilaadin iyo inay suuqa si mala awaalaan lacagtii lixaadka lahayd ee ganacsiga xiriirka la lahayd hadday meesha ka baxdo markaa suuqa wuxuu noqonayaa volatile inaan sicirku aanu fadhiisan marka waxa weeyaan suuqa Forex baryaha marka saameynta waxa ka muuqatay nolosha inteeda kale waxa ka muuqatay saameyntii coronavirus imika euro US waxaan aragnay price-ku maha price runtii maha price-kan mid dhab ah maha toddobaadyada soo socda todobaadkan soo socda wixii ka dambeeya ayaa laga yaabaa in sicirku uu direction-kiina ande uu sawirna siiyo qurux badan iyo price marka uu ka run sheego waayo boodboodkii weeye uu isku soo noqonaya marka price-ku intuu kor u socday hoos socday haddana kor u ka saddex geeska ayuu sameeyay sambu saddex gees marka xaggana uu ka soo socday xaggana uu ka soo socday dhinacun buu boodi doonaa marka haw badato in hoos u boodo haw badato laakiin dhan buu boodi doonaa waxa weeyaan marka price-ku wuxuu isku soo dhawaaday inagu see waxaanu u raacaynaa price-ka waxaan filaynaa in maxay inuu hoos socdo baan filaynaa اللهم صل على محمد maadaama price-ku waxa xoog badan labada
levelkaasaynu filayna levelkana bal inuu soo yar gaadho horta hadhowta bal meelahaba ha ka noqdo hadduu doonay inuu levelkaas soo gaadho ayaynu sii odorosayna marka waxa weeyaan masalan tusaale ahaan اللهم صل على محمد hore haddaan imaado waxa weeyaan markasta price waxa weeyaan sabab kalena maaha ikaadi waxaanu u doorbidnay inaynu short raacno wax kale maaha marka price-ku uu trendka dhan markaad ka eegtay uu jebiyey اللهم صل على محمد markaynu the price-ku uu hoos soo socday intaana taasi trendkana uu jebiyey pullback yar uu sameeyo zoonaha waxaan filaynaa in price-ku maxay uu markale hoos waa xagga technicalka laakiin waxaanu sidaynu sheegnayba suuqu baryaha waxaad mooday inaan ku salaysnayn technical iyo chartka oo la akhriyo waxa weeyaan ay shakadii dhaaftay oo suuqu noqday random ama wuxuu noqday sicirku hadba meel uu booday laakiin technically haddaynu iminka eegno waxa weeyaan pullback kasta oo price kor u sameeyo markasta uu sicirka euro US uu kor u kaco short baynu gelaynaa اللهم صل على محمد laakiin xaqiiqadu waxay caddaanaysaa suuqu marka uu furmo todobaadkan iyo wixii xiga waaya hadda intaan ku dhaafo pound US hadda pound US اللهم صل على محمد pound US ikaadi dheeriga hadda pound US muddada fogarta waxaanu filaynaa inuu long yahay hase ahaatee ikaadi warardan kusoo noqdo zona price kor buu socday pullback buu sameeyey marka xagee mar labaad in hoos socdo deedna adigu zoonahaas support ah hadduu signal buy ah inaga siiyo is okay price markaasaynu kor usii raaci karnaa waxa weeyaan adigu ikaadi haddaynu masalan isoo qabo 1 point sicirka ikaadi 1 point haddaynu marahno 1.22 520 oo kale meelaha adigu support ah hadduuna siiyo waxa weeyaan waxaynu eegi karnaa signal markaa long loo geli karo waxa weeyaan price-ka pound US short term ahaan waxaa laga yaabaa in uu hoos u socdo hase ahaatee inagu midkaynu eegaynaa waxa weeyaan ikaadi waxa weeyaan long inaynu galo marka uu retrace-kaasi dhammaystiro ikaadi meelaha zoonaha zona yoga si aan qalinka soo qaatay zoonahaas oo kale hadduu support zone weeye marka supportkaas hadduu price-ku uu hoos yimaado markaa kabacdi baynu long geli karnaa pound US waxaan sugaynaa inuu price-ku correction hoos sameeyo deedna markaa kabacdi baynu eegi doonaa inaynu long u galno waaya
macnaha halka waa fahanteen waxa weeyaan bond US short term ahaana waxaynu gelaynaa hoos long term ahaana kor baynu gelaynaa marka muddada dhow waxaan sugaynaa waxaan joogaa one hour pending waxa weeyaan price waxaa muddo channel ku raacaya marka muddada dhow price waxaan filaynaa inuu hoos u socdo marka uu zone support ah oo fiican soo gaarana zone yoga markuu support ah soo gaarana waxa weeyaan waxaan eegi doonaa oo long term ka ah inuu buy u galo anyway bond US short term waxa weeyaan bearish long term waxa weeyaan long inuu galo marka bond US na waa inta اللهم صل على محمد هادين يرى اغنو هيكادي يورو باوند براس كنت عركاس كشراري بولباكس بولباك بسمي واي waxa laga yaabaa in price-ku uu inuu long baynu eegaynaa hase ahaatee xaqiiqada meesha taalla waxa weeyaan wax allaale iyo wax inuu sheegi karaya wax allaale wax astaan ah ma aragno ilaa iminka oo aynu long ugu galno aynu ka ugu galno keliya waxaynu haynaa zoonaha ama zoonaha zona yogas oo support zona price ku in support zone-ka dhulka support zone-kaas inuu kusoo dhawaaday laakiin waxay muddaa oo gilaadna oo price ku uu si tartiiba buu hoos soo socda aan isbedel weyn aan sameynayn waxa weeyaan mar haddii aynaan weli haynin astaan inoo sheegaysa long aan haynin marka waynu ka joogsanayna intaynu ka helayno astaan long inoo sheegta waxa weeyaan fakadeedna marka waxa weeyaan Eurobond ilaa iminka waa bearish tan iyo goorma tan intaynu ka helayno astaan inoo sheegaysa long marka weli price-ku hoos buu sii socdaa ma jiro halkan inagama muuqdo sida ah inaynu long u galno hase ahaatee waxa quruxda badan ee keliya aynu arki karaynaa wuxuu yahay in zona support ahi uu soo fool leeyahay zonahaas inuu support yahay ikada calaamadi zonahaasi inuu support zone yahay intaasoo kaliya aragnaa hase ahaatee wax astaan ah oo inoo sheegaysa dib noqosho in price-ku uu kor u baxayo mar haddaana inoo muuqan ku degdegi mayno oo suuqa dee waxaynu ku baanqaadana waxa weeyaan xaqaa'iq maaha mala awaalkeena maaha wax xaqaa'iqa markaynu aragno marka waynu aragnaa levelkii waynu aragnaa oo price-ku joogay marka levelkan waa levelka aynu rabno inaynu ka aragno markaa sida inoo sheegaya in long loo geli karo taasina waxay muuqan doontaa maalmaha soo socda toddobaadka soo socda iyo toddobaadyada wixii xiga waayahay اللهم صل على محمد haddaan muuqaalkan si free baan idinku soo dhigayaa channelka markaa dulmar yar baan sameynayaa haddaan idin dejiyo اللهم صل على محمد euro card
way euro card waxa weeyaan markaad ka eegto euro card trend line-ka aragta trend line-kaas in filinayna jebisay ahayd price-ku benguure inta trend-kii kor u jebiyay buu haddana xagga hoose ku xidhnay marka already waxay ahayd qorshuhu long dee waxaad geli lahayd hadduu trend line-ka korka intuu jebiyo oo dushiisa xejisto sicirku marka muu xejisan taa macnaheedu waxa weeye muu xejisan haddii aan 1 hour-ka kala imaado iyana waxaanu aragnaa price-ku kor ha u baxo correction-ka uu sameeyey haddii even xitaa halkan trend line-gaad saa odhan lahayd kor muu jebin hadduu intuu jebiyo xejisan lahaa okay bay ahaan lahayd oo waxa weeyaan dee long bay dee aanu geli lahayd may dhicin taasi marka price-ku toddobaadkan euro card waxaan filaynaa short inuu hoos inuu galo oo marka waxaan filaynaa maxay lowga price-ku leeyahay low ka hooseeya inuu samaysmo inuu mid ka hooseeya samaysmo ayaan filaynaa iyana markaa euro card qorshaheena toddobaadkan waxa weeyaan short in short loo galo way اللهم صل على محمد بس اوزي كيوي دولار أستراليا يا نيوزيلاند دولار كذا واحد مولاه أي كذا تبغى وران قلي خصي قلي وحويا ينا برايسكو سحولي بكر وصعدا طبعا بول باك بالفلينا لأن برايس كروسي صعدا تارجت كالكاس عندك اللهم صل على محمد مركا برايسكو ليفل كانوا وتشبيه كرو وتشبيه الدعاء كلام مركات كأكتنا اللهم صل على محمد هيك هذه ترين لاين كانوا وتشبيه الترين لاين كرو وتشبيه مركا سيدي عادة حد محفلنا هم برايسكو بول باك سمايا دينا والكا كرو وسيسا marka short term ahaan waxa weeyaan price-ku inuu xogaa pullback baan filaynaa toddobaadkan inuu sameeyo deedna ka bacdi aanu sida ab helno maxay long inuu sheegaya sida ab long inuu sheegaya allahumma salli ala maxamed kaadi waxa weeyaan haddaan imka imaado 4 hour oo kale waxaa midda volume fara badan ma jiro wax fara badan oo sicirka awood number fara badan oo sicirka kor u sii wadi karaa ma jiraan marka pullback baan filaynaa price-ku inuu pullback sameeyo deedna ka bacdi kor halka ugu sii socdo leveladaas soo gaadho waaya marka stop loss halkaas aan dhigay marka uu doonaya hit karaya laakiin waxa weeyaan direction-ku waa long waxaan sugaynaa markaa pullback uu price-ku sameynayo inuu pullback sameeyo maadaama aanay jirin buyers fara badan oo u diyaara inay sicirka maxay maadaama aanu jirin buyers fara badan oo u diyaara sicirka inay halkaa kasii wadaan waayo dheh buyers-ku maadaama price-ku intan orday profit-kii bay qaadanayaan qaar badan baa suuqa ka baxay position fara badan waa meesha ka baxay marka volume fara badanna ma aragno
وكا برايس كتبه wuxuu bilaabay pullback inuu sameeyo haddii uu doonana mar labaadba kor ha u dhaqaaqo zoonayowga hadduu doonana ka soo noqdo laakiin mar walba correction markuu sameeyo deedna sit up uu ina siiyo suuqu ina siiyo sit up odhanaya long in loo galo ayaynu doonaa dib long ugu gelina waaya allahumma salli ala Maxamed haddaan US Young yana sii raaciyo waaya marka Aussie New Zealand waxa weeyaan waxaanu xooga saaraynaa haddii inta aan kusoo koobo waxaynu xooga saaraynaa correctionka waxba eegmayno short qorsheenu maaha todobaadka inaan short u galno qorsheenu waxa weeyaan Aussie New Zealand inaynu galno long u galno marka correctionkaasaan sugaynaa kabacdeedna sit up inuu samaysmo long inuu sheegaya inuu samaysmo marka sit upka long ah unbaynu ayaynu isku ognahay maxay qorsheenu yahay inaynu long u raacno waynu ignore garanaynaa wax laala wixii signals short ah waaya اللهم صل على محمد US Young hadaynu eegno US Young fursad kasta oo inoo sheegaysa inaan short u gallo baan raacayna US Young price-ku hoos socdo zoonahaasna supportna waxba ka banaan weli sicirka ma gaarin price-ku hoos socdo support zone-ka waxba ka banaan weli sicirka ma gaarin kor buu geera kacay maaragta meelahaasan ka galay short waan ku jiraa US Young hase ahaatee qorshihii weli isma bedelin wali yaanu price-ku directionkiisa toos u qaadan laakiin qorshihii isma bedelin qorshahan todobaadkii hore ugu galay short isma bedelin meesha kama bixin waxa weeyaan mar kasta oo sicirku uu pullback sameeyaba short banu gelinaa مثلا trendka laftirkiisa ku xisaabta buu leeyahay marka waxaa laga yaabaa marka price-ku hoos inuu jabsado laga yaabaa hoos inuu jabsado marka waxa weeyaan mar kasta uu price-ku pullback sameeyaba short banu gelinaa anyway waxa weeyaan US Young todobaadka xiga waxaanu eegaynaa fursad allaale fursadina siisa sell in loo galo ayuun baynu u gelinaa waxaynu ignore garaynaa wax laala wixii long ah waxa weeyaan trendline-ka 1 hour-kana trendline-ka inuu hoos u jebiyo baan filaynaa price-ku weeyahay allahumma salli ala Maxamed waxa weeyaan asxaabta analysis-ka marka aad samayso waxa weeyaan marka aad muhiimaddu waxa weeyaan marka aad suuqa la famagurto ee aad odorosto wixii aad filaysay iyo suuqu siduu u dhaqmay marka ay siyeeshaan weeye waxaad doonaysaa inay siyeeshaan hadday isyeelan waayaan waxaa lagaga baahan yahay inaanad khasaaraha iska sii daawan waa inaad rajo sii naawilin marka waa inaad hore khasaarahana u xadidaa marka lafamagurkaagii iyo odoroskaagii suuquna iyo habdhaqankii suuquna ay siyeeshaan ee aad saxan tahay directionkii aad doonaysay jihada aad doonaysay suuq sicirku u dhaqaaqana waxay markiiba faa'iidada soo afjaray daaso markaa waxa weeyaan marka waxay taasi ka marka aad mabaadi'da caynkaas ku dhaqanto waxay ka muuqanaysaa taasi
waxaa ka muuqanaysaa waxqabadkaaga ka muuqanaysaa. اللهم صل على محمد. muuqaal kan isagoo free youtube-ka soo dhigaya markaa waxba yar dul maray. ciddii doonaysa signalska aan maalin walba la famaguro suuqa signalska kuwa aan anigu galo dhammaantood si ay ula socoto, dabcan account live bay ka furanaysaa iyadoo raacaysa linkiga hoos yaalla muuqaalkan. dabeedna email bay soo qoraysaa. emailka markay soo qorto dabeedna waxay helaysaa signals free oo waxa weeyaan waxaan la double garanayaa markaa akoonka si dhow ayay waxay u helayaan markaa adeeg dheeraad waaya. waxaa kaloo iga xasuusina mar labaad waxaa doonaysa waxa weeyaan maaha muhiimadu maaha signals fara badan maaha, laakiin waa signal kooban oo tayo leh. marka iyadoo free maaha, iyadoo free-na waxaad ka heli kartaa, waxaad kala socon kartaa telegram groupka Sharmaarke la shaqaysan oo magacdaray, isna linkigiisa xaggan hoose buu yaallaa. hadalka waxa weeyaan sii badan wixii intaa dheer waxa weeyaan subscribe, share iyo like iyo give your comments xagga hoose wixii comment kusoo qora. kusoo koobi lahaa asxaabta waan salaamayaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.